Koobka adduunka waxa uu galay maalintiisii saddexaad kadib markii la daahfuray Khamiistii. Waxaa dhacay kulamo xiiso badan sidii kii furitaankii u dhexeeyay Ruushka iyo Sacuudi Carabiya. Spain iyo Portugal, Argentina iyo Iceland ayaa iyaguna goorada isla galay. Sidoo kale dhacdooyinka xiisaha badan ee kama marna inay halkan aan barnaamijkan kusoo gudbin doono. Hoos nagala daawo. Maxaa ka khaldanaa banoonigii lagu ciyaarayay? Markii ay Adidas naqshadaynaysay koobka adduunka kubadda quruxda badan ee hadda lagu ciyaarayo, waxa ay rajaynaysay in midiiba 90 daqiiqo lagu ciyaari doono oo aysan qarxi doonin, iyadoo aysan jirin ciyaaryahan Faransiis ama Australian oo si adag u darbeeyay kubadda ay samaysay shirkadda Germany laga leeyahay. Haddana waxbaa ka khaldanaa. Kubad si 50-50 loogu loolamayay ayaa qaraxday, haddana tii lagu bedelay ayaa 15 daqiiqo kadib iyana isqaraxday. Giroud oo bartilmaameed noqday. Nasiibku uma wacnayn xidiga hore ee Arsenal Giroud dhowaantan. Weeraryahanka awoodda badan waxa uu ka soo galay kulankii maanta kaydka isaga oo madaxa u duuban yahay kadib dhaawac soo gaadhay dhowaan, balse waxaa isha farta haddana ka geliyay Nabil Fekir xilli uu dabaaldegayay goolkii guusha ee Pogba. Maxaa ka khaldanaa maaliyadii Faransiiska? Waxay caan ku ahaayeen in sharabaadadooda iyo sigisaantoodu ay casaan guduudan ahaadaan, hase ahaatee maanta waxa ay door bideen inay buluug qaataan si ay ugu ekaato funaanadooda. Aaladda VAR oo markii ugu horeysay loo isticmaalay koobkii adduunka. Waan ogeyn inay dhici doonto. VAR ayaa markii ugu horeysay loo adeegsaday koobka adduunka, waxa ayna doori ay ku ciyaarta heshay markii Antonio Griezmann lagu jalaafay xerada ganaaxa oo loo dhigay gool kulaad. Jamaahiirta gagida ayaa arkeen dhexdhexaadiyeyaasha oo daawanaya muuqbaahiyeyaasha. Maradona oo sigaar qiiqiyay. Diego Maradona waxa uu goobjoog ka ahaa gagida ay ka bilaabanaysay kulankii xulkiisa iyo Iceland. Intii ay socotay astaanta xulkiisa waxa uu si xarrago leh u qiiqiyay sigaar. Goolhayaha Argentina oo intii ay socotay astaanta qaranka dhinaca qaldan u jeedsaday. Intii ay socotay astaanta qaranka Argentina, ciyaaryahanada dhan hal dhinac ayay u midaysnaayeen marka laga reebo mid ka mida, waana goolhayaha oo u muuqday mid jahalunsan xilli ay kaamerooyinku qabanayeen jahwareerkiisa. Goolhayaha Chelsea uma muuqan mid si wanaagsan safka u galay. Waxyaabaha kale ee xiisaha lahaa ee laga diiwaangeliyay 3 maalmood ee uu socday koobka adduunka waxaa ka mid ah waxa uu aaday China, laakiin weli Xavi Mascherano waxa uu ku jiraa heerkiisii ugu sarreeyay. Laacibkii hore ee Barcelona waxa uu galay diiwaanka sooyaalka 144 kulan ayuu ahaa kulankiisii Iceland. Koobka adduunka waxa uu galay maalintiisii saddexaad kadib markii la daahfuray Khamiistii. Waxaa dhacay kulamo xiiso badan sidii kii furitaankii u dhexeeyay Ruushka iyo Sacuudi Carabiya. Spain iyo Portugal, Argentina iyo Iceland ayaa iyaguna goorada isla galay.